السلام عليكم ورحمة الله. badda dhimatay ama baxrul mayit waa haro ama bad yar oo dhulku hareeraysan yahay. baddan ayaa waxaa loogu bixiyay badda dhimatay maadaama aysan ku noolayn wax kalluun ah, sababtuna ay tahay waxaa ku badan cusbada, oo baddan waxay badaha kale ka cusbo badan tahay 10 jeer. waxaana caan noqotay in baddan aysan dadku ku qarraqmin. marka maanta waxaan soo qaadan sababta keenta in baddan ay fududahay in lagu dabaasho oo ay adag tahay in dadku ku qarraqmaan. sheeko yar oo caan noqotay oo arrintan xiriir la leh ayaan soo qaadan. Imperator Roman ahaa oo noolaa 2000 sano ka hor oo la dhihi jiray Hero Lobo ayaa waxa uu rabay inuu samaysto taaj dahab ah oo uu madaxa ku xirto. dahab ayuu marka u dhiibay dahab tume si uu taaj qurux badan ugu sameeyo. taajkii ayuu u soo sameeyay boqorkii, laakiin uu ka sheekiyay in dahabkii uu rabay in taajka loo bedelo qayb ka mid ah la khiyaanay oo macdan kale lagu daray dahabka. haddaba dadkii hore sidee ayay ku ogaan jireen in dahabka macdan kale oo raqiis ah lagu daray iyo in kale? si boqorkaani u ogaado in la khiyaamay iyo in kale ayaa waxa uu u yeeray saynisyahan iyo xisaabyaqaan caan ahaa oo la oran jiray Archimedes. waxana uu u soo bandhigay inuu soo kala cadeeyo in dahabkii uu dhiibay kulligiis taaj loo bedelay ama in qaybtiis la khiyaanay. haddaba Archimedes ayaa waxa la sheegay isagoo arrintaas ka fakaraya ayaa waxa uu dhex galay biyo uu rabay inuu ku qubaysto. markaas ayaa waxa uu arkay in biyuhu kor u soo kaceen. arrintan ayaa waxay keentay inuu xalliyo dahabka in boqorka laga khiyaanay iyo in kale. qaab xisaab u baahan ayuu ku xalliyay. waxa kaloo lagu xallin karaa sidaan ka fudud. inta la soo qaato dahab ay isku miisaan yihiin dahabkii taajka loo bedelay, ayaa markaas waxaa la dhex gelinayaa weel biyo ka buuxaan. biyaha daata ayaa meel la dhigayaa. waxaa haddana la soo qaadanayaa taajka oo weel biyo ka buuxaan la dhex gelinayaa. marka biyaha ka daata ayaa waxaa la barbar dhigayaa biyihii dahabku daadiyay. haddii ay isla eg yihiin waxba lama khiyaamin. haddii ay kala duwanaadaanna macdan kale ayaa lagu daray dahabka. haddaba arrintan ayaa waxay xiriir la leedahay sababta ay waxyaalaha qaar biyaha ugu degaan ama ay u dul sabeeyaan. maxaa keenay in mismaarka yarka uu dego halka markab aad u weyn uu badda korkeeda si caadi ah u dul sabeeyo? horta shay walba haddii uu biyo ku dhex jiro, biyuhu awood ayay iskaga soo riixaan. waa waxa keenay in shay kasta oo biyaha la dhex geliyo uu miisaankiisu naaquso. haddii ay istiraahdo shay biyaha ku dhex jira qaad culayskiisu waa ka yaryahay markii uu bannaanka yaalay. awooddaas ay biyuhu iskaga celiyaan waxyaalaha la dul saaro ayaa keenta in walxaha qaarkood ay dul sabeeyaan. haddaba waxa keenay in walxaha qaarkood ay biyaha dul sabeeyaan iyo in kale ayaa sidan loo kala garan karaa. horey ayaan u soo sheegay in haddii tusaale ahaan weel biyo ku jiraan aad gacanta ama wax kale gelisid, in biyahaasi kor u soo kacaan. marka shaygaas biyaha la dhex geliyay, biyaha qayb ka mid ah ayuu meeshaas ka xoogay. haddii biyahaas meesha laga saaray ay ka miisaan yar yihiin shayga biyaha la dhex geliyay, shaygaasi wuu degayaa oo biyaha hoostooda ayuu aadayaa. haddii biyahaas uu shaygaasi meesha ka saaray ay ka miisaan culus yihiin, waa uu dul sabaynayaa biyaha. arrintan weeye sababta keentay in mismaarka yar uu dego halka maraakiibta waaweyn ay badda dul sabeeyaan. sababtoo ah maraakiibta iyo doonyuhu biyaha ay iska leexiyaan ayaa ka culus miisaankooda, halka mismaarkuna biyaha uu meesha ka saaro uu ka culays yar yahay, sidaas darteedna biyaha hoostooda ayuu aadayaa. gujista ayaa iyadu waxay awood u leedahay inay marna badda dul sabayso marna hoos aado. waxaa arrintaas u sahla haamo ama taangiyo loo yaqaan ballast tank, kuwaasoo marka ay gujistu rabto inay quusto laga buuxiyo haamahaas biyaha badda, markaas ayay hoos aadaysaa. marka ay rabto inay kor u soo kacdana hawo ayaa laga buuxinayaa oo biyihii ku jiray ayaa laga saarayaa. kalluunada badda ku nool ayaa iyaguna waxa ay leeyihiin xubin la dhaho hawo hays ama gas bladder, swim bladder. xubintaas ayaa waxa ay u sahashaa inay kor ama hoos meesha ay badda ka rabaan joogaan iyagoo aan energy badan uusan ka bixin. haddaba markaan u soo noqdo badda dhimatay iyo sababta keenta inay fududahay in lagu dabaasho, ayaa marka hore waxa isweydiin mudan, keebaa fudud in lagu dabaasho, biyaha webiyada iyo ceelasha mise biyaha badda? haddii meesha laga saaro dhaqdhaqaaqa biyaha, jawaabtu waxa weeye biyaha badda ayaa fudud in lagu dabaasho. haddii aad soo qaadatid litir biyo caadi ah iyo litir biyo badda ee cusbada leh, waxaa miisaankoodu culus yahay kuwa biyaha badda. taas macnaheedu waxa weeye shaygu si uu u dul sabeeyo biyaha cusbada leh waxa uu u baahan yahay in biyo ka yar uu meesha ka saaro marka loo fiiriyo haddii la dhex gelin lahaa biyo aan cusbo lahayn. marka waxaa dhacda in shay biyaha caadiga ah markii la dhex geliyo hoos aado, laakiin haddii biyahaas lagu daro cusbo oo lagu walaaqo, uu shaygaasi kor u soo kaco oo kor soo aado. marka maadaama badda dhimatay ay ka cusbo badan tahay badaha adduunka oo dhan, waa meel ay aad u fududahay in lagu dabaasho.
laakiin taas macnaheedu maaha inaysan dadku ku dhiman. 2017 waxaa ku dhintay nin ka tirsanaa baarlamaanka Ruushka. sababta dadku ugu dhintaan baddan ayaa ah in madaxooda hoos aado iyada oo jirka qaybtiisa dambena ay biyaha ka kormaraan, taasoo keenta in lagu qarraqmo baddan isagoo qofku kulligiis aan badda ka hoos marin. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum.